بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتيها بوندا وديال haddii aad nagu cusub tahay oo markii kugu horeysay aad soo booqatay ee tahay channelkan subscribe saaro muuqaalkan la sii wadaag asxaabtada qaybta hoose artidaada noogu reebay commentiga like-na ha hilmaamin qodobadeeda kugu soo gudbin doona barnaamijkan waxaa ka mid noqonaya hogaamiyayaasha sarsare ee beesha Abgaal oo isku raacay farmaajo xabad looga saara xamar waxaa kale oo barnaamijkan ku daawan doontaan madaxweynaha maamulka Hirshabelle lacagtii loo dhiibay jeebka ayuu gashtay sida xogaha lagu helayo Djibouti waxay ka hadashay cidda ay u gacan gelisay dhaqaalihii ay ugu deeqday fatahaada webiga beledweyne maamulada Puntland iyo Somaliland waxa si baan ugu sii baahaya cudurkan coronavirus gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish waxa lagu eedeeyay in gobolka Banaadir uu soo dhoobay dad ku beel ah qodobadaas iyo kuwa kale ay daawan doontaan hadii ay bowraali kaado subscribe channelka saar sidoo kale muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada qaybta hoosana aragtidaada noogu reeb aynu ku bilowno hogaamiyaasha madasha xisbiyada qaran ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay warqad qarsoodi ah u direen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqadan ayaa ahayd mid isugu jirtay digniin iyo goodin sida wararka lagu helayo madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay u heliyaan Cabdiqaadir Cusable iyo Muuse Suudi Yalaxo ayaa lagu waramayaa in ay la wadaageen warqadan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyaga oo kaga dalbaday in uu wax ka bedelo habka uu la tacaamulo dadka ku nool gobolka Banaadir waxa ay sheegeen in mas'uuliyad adag ay ka saaran tahay dadkooda ku nool gobolka Banaadir isla markaana in aqbalaynin in maalin waliba si bareera loo dilo magaalada Muqdisho ayay sheegeen in dagaal wajiyo badan leh oo u dhaxeeya beelaha qaar ay ka curteen sida degmooyinka Karaan iyo Wadajir oo dhowr jeer oo hore uu ka dhacay dagaal qabaa'ilka salka ku hayo arrinkan ayay waxay sheegeen hogaamiyaashu in loo baahan yahay in xal rasmi ah laga gaaro dagaal dhowr habeen ka hor ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac waxaana u dhaxeeyay laba ciidan oo ka kala tirsan militariga iyo sidoo kale booliska walow markii dambe uu isku bedelay dagaal beeleed maleeshiyaad ku noolaa degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa is urursaday waxa ayna go'aan ku gaareen in halka ay ka saaraan ciidamada booliska ee weerarka ku soo qaaday arrintan ayaa waxa ay ku sheegeen mid dhalin karta in Muqdisho iminka ay gasho waji dagaalkaasi oo qabaa'ilka ku salaysan madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale xildhibaan Cabdiqaadir Cusable uu heliyo senator Muuse Suudi Yalaxo ayaa warqadan si wada jir ah ugu diray madaxweyne Farmaajo madaxweynaha waxay ka dalbadeen in uu cadeeyo hadii uu ogol yahay waxyaabaha ka dhanka ah dadka ku nool gobolka Banaadir ee inta badan dawladdiisu ay kula kacdo iyo hadii uu ogoleen sidoo kale waxa ay ka dalbadeen in dadka isku dilaya Muqdisho ee qabaa'ilka ku salaysan isla markaana u badan beesha Abgaal la rumaysan yahay inay abaabulayaan siyaasiyiin dabadhilif ah sida ay sheegeen xukuumadda nabad iyo nolol kuwaasi oo dana siyaasadeed ka arkaya arrinkaas waxa magaalada Muqdisho lagu dilay dad caan ah kuwaasi oo aanooyin qabiil lagu saleeyay dilkooda degmada Karaan ee gobolka Banaadir ayaa kamid ah meelaha sida aadka ah la isugu ugaarsaday isla markaana maleeshiya beeleedku isku dileen waxaana dhowr maalin ka hor ka dhacay dil arxan darro ah waxa sidoo kale bil ka hor degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir lagu dilay doctor caan ah kaas oo lagu magacaabay jiray Xasan Xaayo isla markaana dilkiisa ay geysteen maleeshiya beeleed dilalkan ku soo laabtay gobolka Banaadir ee u dhaxeeyay maleeshooyinka beelaha ayaa waxay noqdeen kuwo joogto ah isla markaana aanooyinkii qabiilka ee gobolada ka jiray iminka aad moodaa in loo soo raro gobolka Banaadir odayaashan warqada sida rasmiga ugu diray madaxweyne Farmaajo waxa ay ka dalbadeen in arrimahan ka dhacayo gobolka Banaadir uu ilgooniyo ku eego hadii uu ogol yahay in sidan ay isku leeyso beeshuna uu warcad ka soo saaro ama iyaga uu soo gudbiyo dawladda uu hogaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la aaminsan yahay in ay irdaha ka xiratay siyaasiyiin badan oo hanqal taagaya in ay madaxtooyada Soomaaliya mar uun irida ka soo galaan waxaana siyaasiyiinta albaabada laga xirto kamid ah Cabdiqaadir Cusable oo la rumaysan yahay in uu qayb lixaad leh ka qaatay soo ambabixitaankii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligii campaign-ka ama doorashooyinka sanadkii 2016 kolkaasi oo la rumaysan yahay in uu tanasulay sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo midba kale uu diiday in uu kursigan ku soo baxo ayaa waxa uu leexiyay dhanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waxaana la rumaysan yahay in loolanka iyo isqabqabsiga shakhsiyaadkan walaalaha ah dartood uu madaxweyne Farmaajo u hantay kursigan oo la rumaysan yahay qudhiisa inuusan ku taamaynin in uu heli doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed Cabduqaadir Cusable iyo Muuse Suudi Yalaxow ayaa dhammaan waxay ka mid yihiin xubnaha mucaaradka ee diidan siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana dhowr jeer oo hore dhacay in la carqaladeeyo shirar ay Muqdisho ku qabsan lahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya ee hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la aaminsan yahay in dadka reer Muqdisho ayna u dhaqmin si wanaagsan waxaana sidoo kale gobolka Banaadir iminka ka jiro xaaladihii ugu adkaa iyada oo Cumar Finish oo gudoomiye gobol looga dhigay uu sandan iyo heella kala hayn sida muuqato gobolka Banaadir iminka waxaa ka socda xaaladihii ugu dambeeyay ee la xiriira musuqmaasuq waxaana sidoo kale gobolka Banaadir la soo dhoobay dad intooda badan laga keenay gobolada Gada iyo sidoo kale degmada Caabudwaaq kuwaas oo u badan beesha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida xogaha ay tilmaamayaan madaxweynayaashii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed kolkii ay xafiiska joogeen waxaa la aaminsan yahay in ay iska cirdeeyeen ama ay markaas iska durjiyeen dadka ehelkooda ah iyaga oo ka baqanayay in qabiil lagu saleeyo arrimahaasi halka madaxda hadda jirta la aaminsan yahay in arrinkaasi iyagu caado ka dhigteen isla markaana ay aad u soo dhaweysanayaan dadkooda haddaba dad badan ayaa isweydiinaya warqadan sida wadajirka ay ugu direen Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Muuse Suudi Cabduqaadir Cusable maxay ka bedeli doontaa aragtida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo jawaab nuuci ah ayuu ka bixin doonaa ma waxa uu ka soo qaadin doonaa odayaal iska hadlay oo warkooda dhig aan jalaq loo siinin mise jawaab ayuu ka bixin doonaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayay sidoo kale odayaashan ugu baaqeen in ay qabato doorasho degdeg ah oo waqtigooda aan la dhaafin karin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay ama warqada ku cadeeyay in waqtigan dalka doorasho ay ka dhici karto isla markaana aan loo heli karin marmarsiyo ah doorasho dalka kama dhacayso gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa lagu eedeeyay in gobolka Banaadir uu soo dhiibay dad aad u tiro badan kuwaasi oo lagu bedelayo shaqaalihii hore ee jooga gobolka Banaadir qaar badan oo kamid ah shaqaalihii hore ee gobolka Banaadir ayaa la ruqseeyay iyada oo marmarsiyo been ah loo sameeyay arrintan ayaa waxaa looga gol leeyahay in xafiisyada ay baneeyeen shakhsiyaadkaasi la keeno dad ku hayb ah mas'uuliyiinta hadda xafiiska joogto iyo madaxda sare ee dalka arrimahan dhowr jeer oo hore ayay dhaceen waxaana xafiisyada laga ceeriyay dad badan kuwaasi oo boosaskooda lagu bedelay dad laga keeno gobolada isla markaana shaqooyin loo alifay waxa kale oo gobolka Banaadir caan ka ah in qofka hadii gobolka la geeyo isla markaana la doonayo in lagu amr in uu soo alifto boos ama uu soo hindisto dhowr boos ama dhowr xil oo waxa jira alifaad ah ama la soo hindisay oo lagu qancinayo shakhsiyaad gaar ah waxaana gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish iminka uu wajahaya xaalad aad u adag kadib awaamiir kaga imaanaysa filla Soomaaliya taasi oo si daran dooriya u soo dhacaysa madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxaa lagu eedeeyay in uu jeebka ku shubtay dhaqaalihii loogu talagalay in looga hortago fatahaada uu sameynayo webiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan dhowr goob oo caratuuryo la dhigay isla markaana jawaan lagu xiray si biyuhu ayna uga soo dul bixin ayay hadda soo jabsadeen waxaana laga cabsi qabaa in magaalada inteeda kale ay ku butaacaan qaybo badan oo magaalada ah ayaa laga barabaxay waxaana dadku ay beegsanayaan deegaanka Ceel Jaalle oo duraadka ka magaalada Beledweyne kaasi oo ku yaala dhur buuraley ah isla markaana aan laga baqdi qabaynin in webigu uu ku soo fataho goobaha sida aadka ah dhagxaanta iyo caratuurada loo dhigo waxaa kamid ah deegaanka Waraabaale oo inta badan la sheego in uu ka soo baxaan ama webigu uu ka soo fataho halkii webigaasi uu ka soo fatahayay ayaa waxaa loola tacaalay si aan caadi ahayn iyada oo jawaano la dhigay hayeeshee biyuhu ay soo jireen sida wararka lagu helayo dhaqaalihii xoogana ee loogu talagalay in biyahaasi lagu celiyo isla markaana biyo xireennada lagu furo ayaa lagu waramayaa in madaxweyne Maxamed Cabdi Waare uu jeebka gashtay dhanka kale safiirka dowladda Djibouti ayaa waxa uu sheegay in dhaqaalihii ay ugu talagaleen maamulka Hirshabelle ay ku wareejiyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya qasnadeeda ayaan lacagtaasi ku shubnay iyada ayaa ka mas'uul sida ay u maamulayso iyo sida ay u kala gaarsiinayso gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeelle Dhexe ayuu yiri safiirka dowladda Djibouti ee Soomaaliya joogo
waxaa soo baxayay eedeymo xoogan oo loo jeedinayo dowladda federaalk ee Soomaaliya taasi oo la xiriirtay in dhaqaalihii loogu talagalay gobolka Hiiraan in shakhsiyaad jeebkooda la geliyo uu ka mid yahay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare taasna ay sababtay in dadka reer Hiiraan lacagtii loogu talagalay aan la gaarsiin qiyaarey warkii waa naga inta haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada qaybta hoose ee commentiga aragtida nawreeb si wararka iyo warbixinada aan soo geelina ay joogto kugu soo gaaraan furo calaamada gambaleelka nabadino